marka la ismaqal arag wanaagsan aqeerta wadanaga la xiriiray qodobada wararka caalamka ee telefishinka Universalna waxa ugu waaweyn dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa iska kaashanaya dhismayaal hor leh oo laga hirgelinayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta xuquuqul insaanka. qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in labadii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya ay kordheen dilalka dadka rayidka loo geysanayo xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xuquuqul aadanaha. akhbaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dawladda waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa loogu baaqay in ay ka fogaato wax walba oo keeni kara dagaal iyo qalalaaso taasi oo la xiriirta tijaabinta hubka nuclearka. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka u diyaar garooba warkaasi oo fidsan oo aan idin sii aqriyo. markale ismaqal arag wanaagsan mudanayaal iyo marweyn warkii oo dhan. dawladda dalka Turkiga ayaa dhismayaal hor leh waxa ay ka sameyn doontaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoona ay dhisi doonto hoteelo, goobo ganacsi iyo meelo baabuurta la dhigto. warbixinta warkan waxa inoo haya wariyahayga Maxamed Shooriye Nuur. munaasabad xariga looga jarayay dhismooyin cusub oo lagu soo kordhinayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka. munaasabada waxaa ka qayb galay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad. waxaana dhismayaasha cusub ee lagu soo kordhinaya garoonka ay noqonayaan hoteelo, goobo la dhigta gaadiidka iyo goobo ganacsi oo laga hirgelinayo gudaha garoonka. waxaana mashruucaasi fulinaysa dowladda Turkiga. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay safiirka Turkiga ee Soomaaliya u fadhiya. waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin horumarka uu sameynayo marba marka ka dambeysa garoonka diyaaradaha aadan cadde tan iyo markii shirkad ka socota dowladda Turkiga ay la wareegtay gacan ku haynta garoonkaasi. Sonra yapılan yeni terminal binasına giriş arasındaki farkı yaşayanlardan biriyim. airportka sidiisaba waa wejiga dal walba. qofka markuu wadan galayo waa meesha ugu horeysa ee wadanku ka soo galo waa airportka. sidaas daraadeedna ayuu muhiim u yahay. aniga waxaan goobjoog u ahaa oo aan arkay airportkan 2012kii qofkii imaaday wuxuu arkayay iyo hadda farqiga u dhaxeeya waa goobjoogan u ahaa. Şu havalimanının altyapısı çok daha gelişmiş bir gelişecektir. terminaalka oo airportka ee la dhisay markii la dhisay kadib waxaan arkay waxa waaye falcelinta ama feedback oo positive-ka ah ee shacabka Soomaaliyeed ka yimid. waxaan rajaynayaa mashruucan hadda hotelka marka la dhamaystirana mid lamid ah feedback ama falcelin oo positive inay ka imaan doonto oo aad ay u soo dhaweyn doonaan. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad. waxaana uu yiri hotelka wuxuu abuuri doonaa shaqaaleyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka wax soo bartay. dad tiro badan ayaa hotelkaasi laga shaqaaleyn doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaa kaloo ku jira parking, waxaa ku jira dukaamadaasi ma laha shirkadu ma lahaan doonto. dawladda Soomaaliya ayaa iska lahaan doonto shopping mallka ay shirkadda ay dhisayso. dhisitaanka la dhisay hotelka naftiisa dawladda waxay ku yeelan doontaa saameyn sida uu xakaam markii ugu horeysay uu ka dhawaajiyay. hotelku waxa weeyaan way dhisayaan, way operate gareynayaan, muddo ayay wadayaan, kadibna dawladda ayaa lagu soo wareejinayaa haddii Ilaahay. Maxamed Shooriye Nuur, Universal TV, Muqdisho. baabuurleyda ka shaqaysata wadada isku xidha magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa maanta shaqo joojin sameeyay kadib markii wadada isku xirta Afgooye iyo magaalada Muqdisho ay ku soo bateen ciidamada dawladda ay dhiganaya isbaarooyinka isla markaana lacagaha ka qaadanaya baabuurta u kala gooshta magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho. taa dabadeed ayaa sababtay in baabuurtu ay istaagaan dabadeedna gaadiidleyda ku dhawaaqaan dibadbax iyo shaqo joojin. cabashada baabuurleyda waxaa inooga soo waramay
wariyeena Shabeellada Hoose Cabdiweli Online. inta badan darawalada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee u kala goosha Muqdisho iyo Afgooye ayaa maanta ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay soo kordheen isbaarooyinka lagu qaadayo lacagaha aan sharciyeysnayn. gaadiidleydan oo calaysan ayaa iskugu soo baxay dhabaha dheer ee xiriiriya Muqdisho iyo Afgooye kuwaas oo gabi ahaanba hakad geliyay isku socodka gaadiidka xamuulka iyo kuwa yaryar. waxaan dadka shacabka ay maanta maalayaan cagahooda haddaba qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka oo TV-ga Universal oo gaaray wadooyinka ay isugu soo baxeen kula hadlay. baabuurta lacag ay si keena awal ku dhibanin gobolka waxa ka dhiman ilaa ka soo bilow baabuurta qudaarta Cabdidabile ilaa laanta buuro baabuurta qudaarta gobolka soo qaadaa waa isbaaraya mooto iyo bajaad ayuu isbaawal dhibanay ummadda isbaara saarneed ayaa niman cusubadana magaalada soo degeen laamiga markii soo degeen waxaan nidhahnaa wada olkana iyo afkana waa ciidan waxaan noo baabuurta inaan laamiga nabaadno hadalno waan nidhaa war maanta waa tidka waa xirnay war shaqada waa joojinay dad weyna u haynay war dadweyne ayagoo dhiban oo qudaarta taagan tahay ilaa xalashaa soo korka ay taagan tahay ayaa xirnay aadaan walweyn midno aadaan number 50 labadii wada waxaan u soo guuray dhibaato isbaara awgeed saakay waxay taagan tahay hashi wado dhineed in la mari waayo timirtii hore dablo la mid cusub la keenay annaga tii hore aan dablo isbaara intii hore aan la leeyahay aan la calaacan culays nagu saarnaa saakay waxaan loo keenay mid cusub oo aan u qaadan karin aan gaadiidka keeni karin gaadiidka inaan dhigano shacabki dantii aan shaqadii aan u haynin aan dhigno aan joojino intaasaan go'aansanay waxaan isugu imaan intaas waay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa iyo taliyaha ciidamada xoogga iyo raggii ciidamadan xukumo in culayska ay naga qaadaan. cali nuur maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Cabdinaasir Caalim gudoomiyaha degmada Afgooye oo gaaray goobaha ay gaadiidleydaasi ay isugu soo baxeen ayaa ku qanciyay gaadiidleyda in la qaadayo isbaarooyinka ay cabashooyinka ka muujinayaan sidaasi awgeedna ay wadada ka qaadaan xayiraadda. dhibaatada ku soo cusboonaatay inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ma dhacayso mana dhici doonto. ballanqaadka taliyaha wuxuu ahaa askarigii lagu arka asigoo qowleysanaya ama dad dhibaateynaya inuusan ka mid ahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. astaanta ciidanka xoogga waa ilaalinta shacabkana dawladuna waxay dawlad ku noqon kartaa shacbiyad. waxa idin gaari ka raali ahaada waxaan idin wadnaa ballanqaad askariga lagu arka soo lacag qaadanaya annaga meel idinka saarayna annaga idinka xigsanayna oo tixgelinayna cabashadiina ciidan kii dhiiggiisa iyo dhididkiisaba idisiiyey haddana inaad ka cabataan kuwii sababay insha Allah waa lala xisaabtamaya haddii alla idmo isbaaro ma oolayso halkan ma oolayso shilin dambena leedikuma weydiin karo biidni rabbi sidaas idinkoo og fasaxa wadada waana ku mahadsantihiin inaad dareenkiina ku muujisaan si nabadgelyo ah. darawalada kaxeeya gaadiidka u kala goosha wadooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku eedeeyay in ciidanka militariga Soomaaliya ay mas'uul ka yihiin dhibaatooyinka ka jira halkan balse inta badan talisada ciidanka dawladda ayaa iska fogeeyay eedeymahaas. Cabdiweli Ali Online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose. Masanad Online markana Puntland madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa magaalada Garowe kaga qayb galay munaasabad lagu maamuusay maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka ee maanta ku beegan. wariyaha magaalada Garowe Cabdifataax Cabdullaahi Farax ayaa inoo soo waramay. xafladda xiritaanka ololaha 16 maalmood ee yareynta tacadiga iyo xuska maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka oo lagu qabtay hoolka jaamacadda BSU magaalada Garowe waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha wasiirka wasaaradda haweenka hay'adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda haweenka gudoonka xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland ururada haweenka iyo marsharaf kale. wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland Maryan Axmed Cali iyo gudoomiyaha difaaca xafiiska xuquuqul insaanka ee Puntland Maxamed Yuusuf Cali ayaa si wada jir ah uga warbixiyay xafladda xiritaanka ololaha 16 maalmood ee yareynta tacadiga iyo xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka oo maanta lagu qabtay magaalada Garowe. waxa farxad ii ah inaan maanta soo gunaanudnay 16 beri oo ka dhac oo ah dabaaldega soo ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah dumarka kaasoo ka dhacayay 9 gobol oo Puntland iyo 22 degmo
waxaan aad ugu faraxsannahay inuu si wanaagsan noogu soo dhammaaday isla maanta waxay ahayd ay ku beegneed December 10keeda maalinta xuquuqal aadanaha dabaaldegeeda iyadana fikrad aad u ballaaran bay ahayd waxa ku jiray khudbado waxa ku jiray drama waxa ku jiray gabayo lagu wacyigelinayo waa nooc min wacyigelin tacadiyada dumarka ku dhaca dhinaca xuquuqul insaanka iyo dhinaca genderka labadaba in loo sheego iyadoo nooc kasta ah iskaashi dhow ay sameeyeen wasaaradda haweenka iyo xafiiska difaaca xuquuq aadanaha Puntland ayaa ku suurta gashay xafladda tan ilaa baana mahadaas iskale ka sokowna mahada waxa iskale wasiiradda haweenka Marwo Maryan Axmed Cali saad la wada socotaan waayadan dambe waxaa jira baraarug waxaa jira mataqaanaa dadkii oo shacabka oo indhahoodii maaragtay uu furan yahay dareen baa jira lagaga soo horjeedo dhibaatooyinkii tacadiyada ah dadku waxay bilaabeen inay gartaan xuquuqdooda waana ku faraxsanahay in xuquuqdaasi aan si midaysan insha Allah isaga kaashano waa maasantiin goobta ay ka socotay xuska munaasabadahani waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka hadlaysay tacadiga loo geysto haweenka waxaana hadallo kala duwan ka soo jeediyay xubnihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo soo xiray munaasabadaasi waxa uu bulshada ugu baaqay in laga qayb qaato yareynta tacadiga sidoo kalena aan la buunbuunin tacadiyo aan jirin muxuu ahaa hoos u dhigid ama yasid ah waxay la tahay deydukuna yeelmaysaa dawladuna yeelmayso waa markii ugu horeysay dawladdeedu in la sameeyey gudoomiyaha xuquuqul insaanka siduu sheegaya halkan markuu maxamed yuusuf 16 aag baa dawladda Puntland ay hadda jirtaa ay ka samaysay si ay u ilaaliso xuquuqda dadka xuquuqda dadkuna waa si guud Cabdifataax Cabdullaahi wararka TV-ga caalamiga Universal Garowe isla wararkaasi xuquuqda aadanaha ayaan ku guda jirnay jamciyadda qurbaha ka dhaxaysa ama qaramada midoobay ayaa soo saartay in tacadiyada dilalka ee dadka rayidka loo geysanayo Soomaaliya ay kordheen labadii sano ee u dambeysay iyadoo warbixinteeda qaramada midoobay ay ku soo beegtay maanta oo ahayd maalintii xuquuqda aadanaha warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tirada dadka shacabka ku dhintay coladaha Soomaaliya ay sare u kacday hay-adda diiwaan gelisa qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2,000 oo qof lagu dilay Soomaaliya muddadii u dhaxaysay Janaayo 2016 ilaa Oktoobar 2017 sidoo kalena la dhaawacay 2,500 oo qof oo dhaawac loo geystay kuwaasi oo ahaa dad rayid ah sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay baaritaanka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in rabshadaha al-shabaabka ay sabab u yihiin geerida ugu badan ee shacabka waxaana ay dhaleeceysay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee la yiraahdo AMISOM dhibaatada ugu badan ayaa qaramada midoobay waxa ay ku sheegtay in amni darada Soomaaliya ay tahay saameyn daranna ay ku yeelatay shacabka gaar ahaan marka ciidamada dowladda iyo kuwa caawinaya ee AMISOM ay la dagaalamayaan al-shabaab ururka al-shabaab ayaa lagu eedeeyay in uu sabab u yahay dhimashada ugu badan sida weerarkii Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof warbixinta qaramada midoobay ayaa arrimahan oo dhan waxa lagu nuxnuxsaday oo lagu sheegay in tacadiyada dilalka dadka rayidka ah lagu sheegay dhowr iyo 10 bog oo warbixintaasi qaramada midoobay ay ka soo saartay markana Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad arday jaamacadda heerka koobaad ka qalin jibiyay oo ahayd ardayda ka baxday jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya ee International Somalia University Umar Maxamed Soomane ayaa warkaasi inoo haya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda dalka waalidiin qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo marti kale waxay maanta caasimadda dalka ay kaga qayb galeen xaflad uu agaasimkeeda uu aad u sareeyay taasi oo ahayd mid ay ku qalin jibinayeen 562 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jiray kuwaasi oo ka qalin jibiyay kuliyadaha kala cilmiga bulshada caafimaadka engineerinka cilmiga kombiyuutarka ganacsiga iyo dhaqaalaha
oo ay ka barteen jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya. qaar ka mid ah ardayda maanta loo qabanayay xafladda qalinjibinta ahayd iyo waalidiinta dhashay ardayda qalinjibinaysay ayaa madasha ka hadlay waxaana ay soo jeediyeen kelmado koobkooban oo ay ku cabirayeen farxadda maanta ee ardayda xafladda loo qabtay. waxaan leenahay marka ardada anigoo ka turjumaya waalidiinta Soomaaliyeed oo ay soo barbaarisay afkoodana ku hadlaa waxaan rajayn doonaa inaad anfici doontiin naftiina ugu horreyn anficina doontiin nafta waalidkiina dhalay anfici doontiin ummadda Soomaaliyeed sidaasaan rajayn doonaa insha Allah tacaala waana kugu ducaynaynaa. gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya Shaafici Diiriye Cabdi ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa oo ay soo mareen ardayda dhameysatay jaamacaddaasi. isla markaasna suuragal ma aysan ahayn inta jaamacad saa kala furan la tartanto jaamacadda dowladda soo jiray sida daraaddeed SLU waxay raadisay inay hesho xiriir caalami ah jaamacadaha ugu dhow oo ay ka mid yihiin jaamacadaha martida noo ee Makerere iyo Gulu iyo Kenyatta iyo Nairobi iyo kuwo kale oo hore waqti ugu sameeyay waayna la soo qeybgalaan. waan maqlaysay hadda maamulkoodii dabcan dadka ahaa inay qelayeen in ardada SLU ay tagtay jaamacadahaas ay la tartameen ardada xagga joogtay isla markaasna ay door fiican qaateen. si gooni ah rabaan ugu mahadceliyay ardada maanta qalinjibinaysa iyo qoysaskooda waxaa moodaa tirada markii la sheego lambar aad u badan yihiin. gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ugu dambeyn soo xiray xafladdaasi waxa uu farxadda dabaaldegga munaasabadda qalinjibintan la qaybsaday ardayda ka baxday jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya. marka inta afaanto dalkaaga intaas yahay oo intaas qof ay raadinayso qofka aan garan ilaa hadda waxa weeyaan adiga aniga annagoo Soomaali abaanan garan kartida aan leenahay dad ahaan iyo waxa aan noqon karno annakaan fahmin cadaawadayna fahantay isku jira cadaawadayna waxay fahantay kartideena waxay fahantay dhallinyaradeenna waxay fahantay muwaadinkeena waxay fahantay dunta aad ka samaysan tahay adiga muwaadinka Soomaaliyeed waxaa la diidan yahay inaad noqoto wax aad noqon kartid ee ka toos hurdada. mas-uuliyiinta jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya iyo ardayda loo qabanayay xafladdaasi ayaa madasha lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo hadiyado lagu dhiirigelinayo waxtarkooda ku aadan xilliyadii kala duwanaa ee ay waxbarashadooda ay ku guda jireen. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa magaalada Garowe ku qabatay kulan lagaga hadlayay siyaasadda aqoonsiga dhalashada ee Puntland. wariyaha halkaasi inooga soo warrama Muslim Cali Duruus ayaa warkaa inoo soo diray. kulankan oo looga hadlayay siyaasadda diiwaangelinta dhalashada ayaa waxa uu ka dhacay hoolka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland. kulanka waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha Puntland sida wasaaradda waxbarashada, haweenka iyo wasaarado kale iyo waliba hay'adaha caalamiga ah iyadoo looga hadlayay siyaasadda diiwaangelinta dhalashada daayirta Puntland. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka. maanta halkan waxaan isugu nimaanay inaan muddo shaqo la waday oo ku aadaneed sidii loogu samayn lahaa siyaasad ku aadan dhalashada taasoo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqeynaysay in muddo ah maantana aan joogno xilligii stagekii ugu dambeeyey meeshii ugu dambeysay aan ku falaaqeyn lahayn ama aan isku raaci lahayn oo dukumentigeeda iyo howsheeda aan ku dhammayn lahayn. siyaasaddaas in muddo ah ayay wasaaradda arrimaha gudaha waday waxaana gacan ka siisay UNICEF. waxaa kaloo wasaaraddu ay waday waxa la yiraahdo civil registration oo loogu talagalay in la sameeyo dadka dhintay la diiwaan geliyo dadka dhalanayo iyaguna la diiwaan geliyo iyo guurka iyo furiinkaba intaba waxay ka dhacaan shaqadaas oo dhan dowladaha hoose waana shaqo ay mas'uul ka yihiin
dowladaha hoose inay fuliyaan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland cabdulaahi cali xirsi timacadde ayaa si rasmi ah u furay kulanka isagoona dhankiisa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in dhalasho iyo sugnaan loo sameeyo carruurta puntland. siyaasaddaasi waxay wax badan ka tari doontaa inay dhallaanka dhashaa helaan warqaddii dhalashada waxbarashada lafteeda waxay wax ka tari doontaa dhalashada iyo sugnaanta haddii la idhaaho aakhirkana waxay tegi doontaa in la helo tirada sugan ee sanad walba dhasha ee caruurta reer puntland waxaa iyana loo gudbi doonaa insha allah haddii laha idmo in ilaa tuulooyinka baadiyaha la ogaado wixii dhalasha dadka reer puntland marka ujeeddada waxay ahayd in siyaasadda la isku raaco hadda waxay ahayd tii uun ugu dambeysay wasaaradahaasi ay qolo walba fikirkeeda ka dhiibanaysay haddii la yidhaahana waxay mari doontaa golaha xukuumadda unbaa finalka uu tegi doonaa waxaanu rajaynaynaa in markaa ay si fiican oo guula inoogu dhammaato insha allah. muslim cali duruus xaaji xirsi wararka tv-ga caalamiga universal magaalada garowe. markana hargeysa magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo maanta ku beegan waxaana halkaasi lagu sameeyey xaflad munaasabadaasi loogu dabaaldegayey. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warbixinta warka hargeysa inoogu soo diray. waxaa maanta magaalada hargeysa si weyn looga xusay maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo sanad walba la xuso 10ka bisha 12aad. munaasabad ballaadhan oo uu soo qabanqaabiyey komishanka xuquuqda aadanaha qaranka ee somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan, madaxda komishanka xuquuqda aadanaha, gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan iyo hay-adaha wada shaqaynta ay leeyihiin komishanka xuquuqda aadanaha iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan. ugu horreyna waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka komishanka xuquuqda aadanaha qaranka ee somalilan yuusuf cabdi aadan. waxaa farxad noo ah in aynu maanta xusayno maalinta xuquuqda aadamaha ee 10 Disembar. komishanku wuxuu kormeeray 12 xabsi oo dalka ku yaala 55 saldhig oo iyaguna dalka ku yaala, goobaha cilaajada, xarumaha agoomaha, xarumaha dhaqan celinta, goobaha barakacyaasha iyo xarumaha dhimirka. goobahaas aanu kormeernay wuxuu komishanku ku soo arkay baahiyo kala duwan oo komishanku uu gudbiyey oo la wadaagay mid kasta wasaaraddii iyo hay-addii ay xusaysay. cabashooyinkii soo galay komishanka sanadkan 2017 waxay ahaayeen 150 cabasho oo la xidhiidha aadamaha xuquuqda aadamaha, waxaana lagu xalliyey sifo sharci waafaqsan, halka sanadkii hore ay ka ahayd cabashooyinka komishanka soo galay 160. markaana hoos dhacbada ka dareemayna. sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda cadaaladda ee somalilan master cadare iyo weliba gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan garyaqaan aadan xaaji cali axmed. waxaa laga hadlayaa haddaba marka la doonaya in la ilaaliyo xuquuqda aadamaha way fara badan tahay. haddii aan soo koobo dee horta waxaa ugu horeysa xuquuqda qofku inuu noolaado. waxaa in xuquuq la ixtiraamo, waxaa xuquuqda inuu helo cadaalad, isaguna cadaalad sameeyo. waxaa loo baahan yahay xuquuq inuu xor ahaado oo aan la adoonsan, isaguna aan wax adoonsanin. waxaa loo baahan yahay inuu helo xuquuqdii inuu wax barto ujeedka ka baxo si uga nabadgalo waxyaabahaasi. haddaad aragto meel xuquuqul insaanka la ixtiraamayo ama la ilaalinayo waxay calaamad u tahay ummad jirta. intaynu xuquuqda ilaalino ayay qarannimadeenu la jiraysaa. markaa xuquuqu way fara badan yihiin oo dhinacyo kala duwan bay yihiin. waxaana taa tusaale u ah dastuurkeena somalilan waxaa jira chapter dhan oo uu kaga hadlay xuquuqaha oo la yidhaha xuquuqaha asaasiga ah. markaa xuquuqahaasi waa xorriyaadka ka mid a ama xorriyatul qoolka ahaado ama xorriyaadka isu imaatinka iyo shirarka ururo in la samaysto. xorriyaadka asaasiga ah waxaa kaloo uu ka hadlayaa xorriyaadka aan ahayn kuwa madaniga iyo siyaasiga ee ah dhaqanka, dhaqaalaha iyo bulshada, oo ah in tacliin la helo, in biyo la helo, in meel la degan la helo, in guri loo haydo la helo. xuquuqahaasi intaba dastuurkeena uu ka hadlaya. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen, universal t v, hargeysa. wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda soomaaliya marwa khadiijo maxamed diri oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay ka hadashay arrinta la xiriirta ciyaaryahanka gobolka banaadir ugu ciyaara dhinaca weerarka. maxamed shuuriye nuur barakaad ayaa warkaa inoo haya.
shir jaraa'id oo ay maanta ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimada dalka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya marwo khadiijo maxamed diriye waxa ay kaga hadashay arrinta maalmahan ballahadalhaya ee ku saabsan ciyaartooyga lambarka 9aad u xirta gobolka banaadir ee lagu magacaaba cabdimajiid cusmaan iyadoo arrinta ciyaartooygaas ka hadlaysana waxa ay tiri haddaba guddiga dishibliinka iyo guddiga adaabta ee Somali Food Federation markuu arkay warqadda dacwadda kor ku xusan markuu arkay nambarka xeerka oo ah qodobka 1 markii uu arkay taariikhda bisha 8aad ee ciyaarta Banaadir iyo Jubbaland markuu tixgeliyay qodobkaas 1 farqadiisa 7aad ee xeerka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2017 markuu arkay habka loo diiwaan geliyay ciyaaryahanka markuu hubiyay jinsiyadda ciyaaryahanka iyo magaciisa kan hooyadiis wuxuu go'aansaday in ciyaartooyga la yiraahdo Cabdimajiid Cismaan Ibraahim nambarka 9aad oo ka tirsan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee gobolka Banaadir uusan ahayn ajnabi ka qayb qaadan karo tartanka xiriirka kubadda cagta tartamada xiriirada kubadda cagta ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday arrinta ku saabsan baahinta tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee sida xiisaha leh uga socda magaalada Muqdisho waxaa la ii sheegay maalintii saacado ka hor aan inta ku shiraynay inay kulanka qayb ka ahaayeen waxaan u hadashay hal qof aan idiin hadlay oo afkiina ku wada hadlay wax tabasho oo jiray oo hawshaas ay ka socon weysayna meeshaan laguma sheegin hal wiil aa idiin wada hadlay hal gabarna waa sakan garaysa taas aad wada qabteen dhammaantiin saacadaha jidka la sii socdo garoonka la aadayo waxa soo baxay ma garan karin ee aftaan iyo Muqdisho cable kusoo kordhay waxaa kusoo kordhay wadaaggaan ku malaynaya annagana waxaan diyaar u nahay cid walba oo wartarisa hadday maqal tahay hadday muuqaal tahay hadday qoraal tahay in ay tartanka ka wada qayb qaadanayso wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diriye ayaa ka codsatay maamulka sare ee telefishinka Universal in warbaahinta dalka oo idil ay ka gacan siiyaan baahinta ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda garoonka Banaadir tarinta booskii ay ka waday astaan TV wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa uga wadaaya Universal TV kaasaa qaybinaya kaasaa idin wada siinaya waxaan ka codsanaa in si dhammaystiran oo loo wada dhan yahay naloo ku wada gudbiyo agaasimaha bariga Afrika ee telefishinka Universal Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo madasha ka hadlay ayaa sheegay ka Universal ahaan in ay qaadanayaan codsiga ay u soo jeedisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ka Universal ahaan waxaan ayadaynaa ballan qaadaynaa horena u sameynay si isla egana u bixino annagoo ixtiraamayna xuquuqda saxaafadda ayaa waxaan ka dejinay loogadeennii TV-yada waa siinay idaacadaha cidda qaadanaysa waa siinay iyadoo looga lahayn oo ah HD high definition aan siinay wayna isticmaaleen runtii si walaalnimo leh iyo sareexadaan u wada shaqaynay waan u wada shaqaynaynaa maxamed shuryan nuur Universal TV Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay isla markaana lagu maamuusayay maalinta xuquuqda aadanaha oo ku beegan maanta waxaana ka qayb galay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada iyo xuquuqda aadanaha maxamed cabdinaasir ayaanle ayaa warkaasi inoo haya marka la gaaro 10 Diseembar waxaa la xusaa maalinta xuquuqul insaanka adduunka Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga xuso waxaa la soo bandhigaa dhibaatooyin xiriir la leh xuquuqda aadanaha oo ay ku dhacdo hadba cid ay la xiriirto xariyaha ay dadku ku barakaceen ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad u baahan in la gacan qabto qaarkood dadkaasi waa naafo marka la sheekaysato waxay ku sheegayaan inay u baahan yihiin gargaar dhanka bini'aadanimada ah laba sanaan jirnaa haddii hadda ka soo qannada iga yaraan joogsadii dhawa joogsan waay socon waay
waa ujeedaan oo mataqaan waxay u baahan tahay in wax loo qabto caafimaad ma laha mataqaanaa biyo uguma jiraan nolol kale ma laha wax ka horbaxaya ma jiraan yani islaamkaas ilaahaya un mataqaanaa haddii aan idin ay isaga nooshahay cabduqaadir sheekh cabdiwahaab waxa uu ka shaqeeyaa xuquuqul insaanka qaybta horumarinta haweenka iyo carruurta waxa uu ka warramayaa sida ay tahay in loo ilaaliyo sanadkan isticmaalana waxa waaye u istaag ilaalinta xuquuqda aadanaha qof kastoo annaga naga mid ah ayay waajib ku tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj maxamed ibraahim macalimow iyo fadwo xasan jimcaale u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka annagu haddaan nahay suxufiyiin waxaan had iyo jeer maaragtay qayb ka nahay ururada xuquuqul insaanka oo had iyo jeer waxaan u hadalnaa xuquuqda wariyaasha soomaaliyeed qayb weyn ayayna maaragtay ka tahay wariyaasha soomaaliyeed dhibaatooyin adag ayaa soo gaara sidaa ka warqabtaan sanadkan in ka badan 50 wariyaal maaragtay la xiray oo dalka qaybo kala duwan lagu xiray iyadoo waxa lagu xiray ay tahay shaqadan ay hayaan iyo geesinimada iyo meel walba ay taagan yihiin oo ay ka mid yihiin meelihii hadda aan soo aragnay dadka maaragtay soo barakacay iyo xaaladahooda iyo had iyo jeer ka hadlaan ma ahan dhibaato yar inta ku soo koobi karnaa ma inta aan ka sheegi karno oo wax la og yahay oo caam ah waana dad la ilaaway dadka IDPs kama barakacayaasha ah guryo cooshaday ku nool yihiin hadduu maanta roob imaado biyaha qaadaya anagana sare waaweyn aan ku jirnaa ma ogin roob da'ay wax kale iyagana roobkii biyihii qaaday aawo xuquuqul insaankoodii marka cid og ma lahan wax barasho ma haystaan waxaan u direynaa fariin degdeg ah in laga warqabo dadkan waxaa ka keenay guryahoodii iyo meelahoodii ay deganaayeen baahi jirto maxamed cabdinaasir ayaan leh telefishinka universal magaalada muqdisho markana magaalada london ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee taasi oo ay ka qayb galeen culamaa udiinka iyo qaybaha bulshada cabdirashiid rashka ayaa warbixintaasi noo soo diray kulankan ay iskugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada london ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu weyneynayay sidoo kale lagu xusayey dhalashada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam culimaa udiinkii weliba waxgaradkii kasoo qayb galay kulanka ayaa marka hore ka akhriyay halkaasi mawlidka iyo weliba sidoo kale nebi ammaan iyo siirada xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك dadkii halkaasi ka hadlay oo culimaa udiin u badnaa ayaa marka hore ka dhawaajiyey muhiimadda ay leedahay in la weyneeyo sidoo kalena la xuso dhalashada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayagoona ugu baaqay bulshada soomaaliyeed iyo weliba bulshaweynta muslimiinta caalamka ku nool in ay badiyaan salliga xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam This gathering tonight is one of the most important gathering that you will ever attend in your life. And the reason is because you come to learn through the front door. Allah says in the Quran, وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. When you come to visit people, don't come from the back door or the window, come from the front door. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa u yimid rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay waxaan rabaa inaan ku amaano ayaan rabaa markaas ayaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri qul i amaan waxaad i amaanaysid igu amaan laa yafdiika allahu faaka ilaahay afkaaga ma hoojiyo ee i amaan waa u duceeyey rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka nebiga markuu ammaanayay ayaa wuxuu soo qaaday wuxuu dhahay markii lagu dhalay meel kasta dhan ayaa isla nuuray marka dhalashada oo laga hadlaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam arin anaga hadda aan sameyn ama aan la imaan ma aha warta waa arin nabigeena sallallahu alayhi wasallam asaga ka hadlay dhalashadiisa asxaabtana way ka hadleen sanad walba xilliga markii la gaaro ayaa daafaha caalamka waxaa lagu qabtaa mawlidka oo lagu dabaaldegayo dhalashada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyaduna bulshada soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ay weyneynayaan dhalashada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam nabiga dadka uu ka duwanaa calayhi salaatu wasalaam farxadiisa waxaa lagu wadaajiyey
wejigiisa aan nuur iftiin ka soo bixi jiray calayhi salaatu wasalaam wejigii nabiga iftiina ka soo bixi jiray iftiin nuur baa ka soo kacaya oo birbirqaya weliba oo la arkayaba aan nalka camal u daarmaya calayhi salaatu wasalaam saa darteed asxaabtu waxay ka sheekeynayaan wejigii nabiga calayhi salaam mar walba iska nuuraya wejigii mar walba iska nuuraya haddaba nabi maxamed markaa ku farxaysid farxadda saan u wadaagno waa isu yeeraynaa waa imaanaynaa nabigaan ka sheekaynaynaa nabigaan ammaanaynaa nabigaan xasuusanaynaa asxaabtaan ku dayanaynaa ilaahay baan adeecaynaa nabigeenaan baranaynaa calayhi salaatu wasalaam maxabadeenna aan nabiga u qabno yaan cusboonaysiisanaynaa intaasoo dhan bay ka kooban tahay mawlidka nabiga calayhi salatu wasalaam intaasu ka kooban yahay marka qofku yidhaha mawlidka waa bidco qofku yidhaahda waa jaahil murakab ah ama nabi maxamed kasoo horjeedo oo munaafiq ah diinna lahayn cabdirashiid maxamed nuur cabdirashki universal t v london. magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu caleema saarayay mid ka mid ah nabadoonnada beelaha soomaaliyeed waxaana caleemasaarka nabadoonkaasi ka qayb galay qaybaha bulshada. cabdinaasir maxamed cali ayaa warkaasi inoo haya. munaasabadan ayaa lagu caleema saarayay nabadoon cumar maxamed cadow nabadoonka beesha cali muuse cabdulle waxaana ka soo qayb galay odayaal waxgarad madax dhaqameed haween iyo dhalinyaro. qaar ka mid a madax dhaqameedkii kulanka ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey caleemasaarka nabadoonka waxaana ay ballan qaadin inay la shaqaynayaan. cumar maxamed cadow arfax gacarow waa ku soo dhawayhaynaa mar labaad kusoo dhawaaw cali muuse cabdille iyo intaad ku daran kartaba garabkaaga allah galaan leehay ayaanahay xasan maxaad boolintiga dibeediyad shuuqeen maxaad wasabdana waa la jiray cumar maxaad cadow aan ahaan yina waa yahay cudurna maahina waa nin fiican ha guulaysto. dhinaca kale nabadoonka la caleema saaray nabadoon cumar maxamed cadow ayaa ballan qaaday inuu ka shaqaynayo maslaxadda iyo horumarinta beesha. alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin ciddaan cali muuse cabdullaah waxyaabihii codsiga iyo dhibkeena iga idinsoo gudbiyey waa iga ka warramay waxaana u malayhaa inaad si fudud uga jawaabi doontiin daawudow. waxaan kaloon caddayhayaa waxaa jira adduunyadu dhib iyo dheef waaye cali muuse cabdulle dheefka iyo soomadoo dhan inuu dhibka walaalihiis daa'uud la qaato wixii karaankiisa uu ka bixiyo kana soo qaado walaalahoorna ay dhibka iyo dheefta la qaataan ayaa ugu imid meesha. waxaan idiin sheegayaa nin ka dhashay isaaq iyo yuusuf ee annasaan u warramaayo nin haddaad fiiriseen nin cadkiisaan ilma qaadan kariyaa. ugu dambayntii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa iyana munaasabadda hadalla ka jeediyey. nabadoonnada kale inuu la shaqeeyo waan codsanaa waana waxaana muhiima in beeshaani ee hal ahaato ma rabo midnimada beeshaani waa muqadas waana mid waa inay weligeed alleeda isu duubnaataa anigana taasaan u taagnaaha in allaala intii igala shaqaynaysana sidoo kale waa ula taagnaaha. intaas kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ambaliyi bogaadina u diro waa 10 Diseembar nabadoon cumar dhegey waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo sida qorshaha iyo doona isagana u diro waa dowladda. cabdinaasir maxamed telefishinka universal magaalada muqdisho. wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu weyneynayay maalinta xuquuqda insaanka. cumar maxamed soomane ayaa warkaasi inoo haya. 10 bisha Diseembar sanad walba waxaa dunida inteeda kale lagu qabtaa kulamo dib la isugu xasuusinayo wacyigelinta, ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyo in meel looga soo wada jeesto joojinta xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay ilaalinta iyo dhowrista ka hortagga xadgudubka xuquuqda aadanaha iyadoo xafladan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya. fadhigan ayaa xubnihii ku sugnaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka dalka, wasiire ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho. agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya Dr. Deeq Suleymaan Yuusuf ayaa ka hadlay in Soomaaliya ay ka jidho
tacadiga ka dhanka xuquuqda aadanaha balse aan loo baahnayn in la iska indhitiro. waxaan u malaynayaa annagu haddaan Soomaali nahay maanta maalin weyn bay inoo tahay haddaan la iska indhatiraynin waxaan ognahay aasaaska u weyn masiibadii nagu dhacday inay aasaas u ahayd ku xadgudub lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha iyo iyadoo qofka bini aadanka xuquuqdiisa aadanaha uusan helin labadaa markii la waayey bay arrintan nagu dhacday iyo qodobo kaloo badan laakiin waxaa aasaas u ah oo fiican in la xusto in waxyaabaha ugu weyn ee qabsaday inay aasaas u ahayd markii la waayey xuquuqda aadanaha. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo bulshadii kale ee ka qayb gashay kulankan ayaa dhankooda ka hadlay madashan waxaana ay sheegeen in tallaabada dhowrista xuquuqda aadanaha ay tahay mid waajib ka saaran shakhsi kasta. haddaysan naafadu sharci lahayn ama sharci haga lahayn dhexdeeda iyada laftigeeda ama qaabka ay xuquuqda u kala leeyihiin shuruuc aan kala hagaysaa aysan jirin waa isku wareeraysaa naafadu mid gurguuranaya iyo mid labada indhood la iyo mid labada gacmood la iyo mid nooc kasta ha ahaadaane isku xaquuq maaha laakiin baahida way wada qabaan naafadina way wada yihiin. wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa ugu dambeyntii xafladan ka sheegtay in sanadkan dhamaanaya ee 2017 wax badan ay ka qabteen arrimaha xuquuqda aadanaha balse ay hoosta ka xariiqday in arrintan si wada jir ah la isaga kaashado. marka waxaan isleeyahay 2017 guulo badan ayaa maaragtay aan ka gaarnay dhinaca xuquuqda oo ha noqoto jinsiga ha noqoto caruurta xuquuqul insaanka dadka baahida gaarka qaba marka waxaan isleeyahay sanadkan 2017 waa mid aan juhdi weyn gelinay insha allah 2018 sidaas oo kale. 1984 ayay ahayd markii shirka golaha guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay isku raaceen in 10ka bisha December ay tahay maalinta caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka lagula kacayo tacadiga ka dhanka xuquuqda aadanaha haddana ay aad u yar tahay in cadaalad ay helaan dadka la kulma dhibaatooyinka ka dhanka tacadiga xuquuqda aadanaha. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. shir looga hadlayay sharciga dib u dhiska Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen wasaaradaha howlaha guud ee heer federaal ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasi oo soo qaban qaabisay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya. Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa mar kale warka inoo haya. shirkan oo muddo 2 cisho ka socday magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana diiradda lagu saareeyay shirka sharciga wasaaradda iyo sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa xarumaha dawladda ee ku yaala caasimadda iyo gobolada dalka. waxaa shirka maanta soo xiray wasiir dawlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee dawladda Soomaaliya Mudane Axmed Cabdi Kaariye. wasiirada maamul goboleedyada qaarkood ayaa ka hadlay faa'iidada shirkan. kulankan wuxuu ah kulan aan uga wada tashanaynay sida aan bilicdi dalka iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha aan u soo celin lahayn hadda wada tashiguna markii dadku intay tashadaan meel isugu yimaadaan waxunbaa ka soo baxa arrinkaana waxa weeye waxay la tahay arrin ummadda Soomaaliyeed farxad u ah ummadda Soomaaliyeedna ay nooga dayan doonto wasaaradaha kale ee howlahooda kala haystana ay ku dayan doonaan sidaan oo kale ayagana qaybahooda heer state ayaguna ay sidaan oo kale u casuumi doonaan. runtii waxaan dhahaynaa marka hore ilaahay baa mahadle kadibna waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda howlaha guud ee federaalka qorshihii isu imaatinkan iyo dadaalkan muraadkuna uu ahaa in laga wada tashto heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidii dalka kaabayaashiisa dhaqaalaha loo dhisi lahaa macluumaad buuxana looga heli lahaa la isuguna xirnaan lahaa oo hal barnaamij ay u wada noqon lahayd heer federaal iyo heer state heer gobol heer degmo ilaa heer beeleed. ugu dambeyn wasiir dawlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee dawladda Soomaaliya Mudane Axmed Cabdi Kaariye oo shirka soo xiray ayaa sheegay waxaan isla ognahay dhammaan arrimihii sharcigii horay aan uga hadalnay ha noqoto hadda howlihii horumarinta iyo dib u dhiska noo yaalay ha noqoto dhammaantood waxaa wasiiradii dowlad goboleedyadu caddeeyeen aan isla halka ka caddeeyeen sana gaarnay in is-afgarad si buuxda ah
iyo isla meel dhigid buuxda aan ka gaarnay runtii aad iyo aad waxay u tahay muhiim waana meesha aan is leenahay halkaasay maslaxada iyo danta iyo hawshan hortaalla u dhimanaysaa. cabdinaasir maxamed, telefishinka universal, magaalada muqdisho. beeraleyda ku dhaqan magaalada Gibiley ee Somaliland ayaa xilligan ku guda jira tacbashada beerahooda inay soo goostaan xilligoodii, waxaana halkaasi tagay wariyayga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen oo warbixin ka hadlaysa xaaladda beeraleyda gobolka Gibiley. warbixinta ay noogu soo diyaariyeen. Somaliland waxaa soo martay abaar ba'an oo daba dheeraatay, taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyadaba. qoys kasta oo xoolo dhaqato ahi waxa ay ku waayeen xoolo badan, halka qaarna gebi ahaanba ay galaafatay abaartu xoolahoodii. muddo badan kadib ilaahay ayaa raxmaadkiisa shubay dadka ay abaartu heshay, waxaanay dadkaasi bilaabeen inay qotaan beerahooda. waqtigani waa xilliga la soo gooyo dhammaanba dalagyada beeraha, gaar ahaana beeraleyda hadhuudhka. haddaba tv-ga universal ayaa waxaa warbixin gaara ugu kuurgelayo xaaladaha beeraleydaasi uu ka sameeyey beeraleyda degta deegaanada gobolka Gabiley. rashiid cabdi cabdilaahi oo ka mid ah beeraleyda deegaanka Galooley oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxa uu iga warbixinayaa xaaladaha kala duwan ee uu hadhuudhku u soo maro. inta la goynayo inta la gooyay marka hore cagaf lagu qodayaa, wala sameeynaya dabeed uu baqlayaa, markuu xogay gaaro waa la baabaqaya si dibi iyo cagaf intii loo helo la baabaqay, dabeed uu dheeranaya u dhalayaa, markuu dhalo dabeed xubin soo ridaya shimbirta laga celiyo. marka shimbir marka laga celiyo cadaado waa la goynaya, ma la gooyo la kuusaya, dabeed beertii baa laga soo rarayaa, la keenaya gurigii sanimka oo kale waa soo dhigay, madaxii baa laga jaraya, saan kuu sheegay cagaftii baa la gelinaya. cabdirashiid waqtigii la tumi jiray ee aanay soo bixin cagaftan iyo lagu mishiinka la geliya, raggu markay tumayaan garugoo kale hees hawleed buu lahaa, bal maxaad nooga sheegi kartaa? waxaa weeyaan marka la tumayo saddex qaybood baa iska soo horjeesanaya, amba afar amba shan, dabeed maanacaa lagu qaadayaa, kaasaa loo gudbinaya maanacadii oo waxaa la odhanayaa hayeysatu gaamoj baa la leeyahay, kii kalaa qabanaya gaamoj, kii markuu qabtaa hadda adinka kusoo noqonaysaa, adna kii baad ku celinaysaa, ushii baa la qaadayaa, xawsaydow 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 xawsaydow, nin baa haysta markaa, ninkaasunbaa goynaya, mar buu goynayaa, mar baa usha la dhigaya, dabeed marka la yar naso wuu ku celinaya adana, saasaa lagu tumi jiray. waqtigii hore raggaa tumi jirayoo, laakiin hadda imika malaha saad ii sheegtay waxaa la sameeyaa mishiin baa la geliya. labada keebaad markaad isbarbar dhigayso, labada keebaad la qaaday cagaftaa ka dhibaatay yar shaqadii markii ragga loo eego. warbixintaasi uu noo soo diyaariyey wariyayga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen oo ka hadlaysay xaaladda dadka beeraleyda ee gobolka Gibiley ee Somaliland. markana magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, taasi oo ay ka qayb galeen culimada diinka iyo qaybaha bulshada. Cabdiqaadir Goorabare ayaa warkaa Gurceel inoogu soo diray. munaasabadan oo lagu weyneynayay dhalashada nabiyullaahi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha oo iskaga kala yimid afarta xaafadood ee degmada Gurceel, maamulada degmooyinka ee maamulka gobolada dhexe, mas-uuliyiinta sarsare. dadka ayaa waxay socod ku soo mareen bartamaha degmada, halkaasi waxaa lagu soo bandhigay ciidamada kala duwan ee maamulka sida baambeyda, nabad sugidda, milatariga, booliiska iyo weliba gawaarida gaashaaman. ugu dambeyn dadka ayaa iskugu tagay fagaaraha weyn ee bartamaha degmada Gurceel ku yaala, halkaasi oo ay mashaayikhdu ay ku wacdinayeen. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay sheekhul baledka degmada Gurceel, Sheekh Maxamed Jaamac Yare, oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo dabaaldegidda dhalashada nabiyullaahi maxamed. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nafarayaa nabigeena inaan ku farxno jeclaanno calayhi salaatu wasalaam. aayadihii hadda mucallimku noo akhriyad maqlayseen baa waxaa ka mid ahaa qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. u dheh nebiyullaahi muxamedow salawaatullaahi wasalaamu calayka, ummadda ahlu iimaanka ah ha ku farxeen ilaahay fadliga ugu tafadulay iyo raxmadda ugu naxariistay.
sidoo kale halkaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barre Beenta, guddoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadiq Sheekh Yuusuf iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe Xasan Gaboobe. maanta haddaan ku damaashaadayno oo dhalashadii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam annagoo shicaarkeeda muujinayna oo isugu imaanayna oo ardada yar-yarka ahay dadweynihii iyo bulshadii iyo hooyooyinka waa farxad noo gooni ah, waa nasiib aan yeelanay oo gooni ah, waxaana intaas noo horseeday culummada hoggaanka noo ah. dadka bulshada ah ee gobolada dhexe jooga meel fiican baa gaadheen, ilaahay ku shukriya. ilaahay wuxuu yidhi la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid buu yidhi. waxaad faa'iido ku hesheen inaad hesheen caqiido wanaagsan, difaac wanaagsan. waxaa ugu muhiimsan waxa aad hesheen in caqiidadiinnu ay nabad gashay, mashaayikhdu ay idiin akhrisay cilmigii tawxiidkii saddexda ahaa oo sheekhu noo sheegayey oo dhibka badan keenayana aad ka badbaadeen. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo abaabulay xafladdan ee ka shaqeeyey. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay noqdaan dadka xawdka nebiga quuta inay noqdaan ayaan ugu mahadcelinaynaa. runtii wax weyn bay qabteen. Cabdulqaadir Gure, TV-ga caalamiga Universal, Gurceel. magaalada Nairobi ee wadanka Kenya gaar ahaan xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida ee Isli ayaa lagu qabtay aqoon kororsi ku saabsan shareecada Islaamka kaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada. aqoon kororsigan loo qabtay macallimiinta madarasooyinka Quraanka Kariimka ee magaalada Nairobi waxaa soo qabanqaabiyay madallada ay ku midaysan yihiin dugsiyada Quraanka Kariimka ee dalka Kenya iyadoo macallimiinta la barayay habka ardayga wax loo baray iyo waxyaabaha looga baahan yahay macallinka. qaar ka mid ah culimadii bixinaya aqoon kororsiga ayaa macallimiintii ka qayb gashay kaga faa'iideeyay sida ugu wanaagsan ee ardayga wax loo bari karo. يا معلم الخير يا معلم الناس الخير يا من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن آد نقطة دد كان وحبريس أسوة حسنة وين آد نقطة وإن يكون ضيدان دد كان معلم كهاو هذا وحاد نقوني أرضي مريدي ذات هبدا سيوحي بلا صلا فيرين والمأمول سيدافع عن الله سافع عن الله الواقع والمأمول هذا سينا هاي بالوحينو سينو كلي يمينو ترتيب سنتهاي مثلا وإنك كلا دعت سنتهاي هذا إنك كلا مأمول كسيدي في عناية إنا نقولنا أنت سبي كلمة ديدو كوكو بنتهي مواهبتا طلابتيسا أرديسا mid kastaba miisada uu leeyahay iyo mawaahibta ilaahay uu siiyey ee khaaska ah waa inuu yaqaana macallinku dadku wax wada isku mawaahib ma aha, isku aragti ma aha, isku si wax ma arkaa, isku faham ma aha, isku aqoon ma aha, isku si wax ma arkaa, way kala duwan yihiin. marka waxa weeyaan waa inuu macallinka yani arrimaha noocaasa uu ilmaam u leeyahay oo uu eegaa oo uu la socdaa. Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan Jeer oo gabagabadii madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay sababta loo qabtay aqoon kororsigan iyo waxyaabaha macallimiinta looga faa'iideeyay. mawduuca aan maanta isugu nimi wuxuu ahaa dowro loo qabtay mucallimiinta wadanka Nairobi oo dhan. waa dowra mucallim almithaali, macallinka saxda ah seminaarkiisii weeye, macallinka saxda ah seminaarkiisii. sidaa daraaddeed dugsiyadii oo dhan maanta waa la fasaxay, macallimiintiina halkaa la isugu keenay si ay aqoontooda u siyaadsadaan, deedna waxay barteen ay ardaydii iyo ula laabtaan. waxaa runtii in la sheego u baahan dadkii ama culimmadii ka qayb qaadatay dowradani waa dadkii ugu aqoonta badnaa weeye. aqoon kororsigan oo socday muddo 2 maalin ah ayaa madashii lagu soo xirayay waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay macallimiintii ka faa'iideysatay iyagoo kaga mahad celiyay maamulka midowga dugsiyada Quraanka Kariimka ee dalka Kenya oo soo qabanqaabiyay aqoon kororsigan loo qabtay macallimiinta dugsiyada Quraanka Kariimka ee magaalada Nairobi. Cabdiwali Xuseen Tawakal, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Nairobi. markana akhbaraadkii dibadda. dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa laga dalbaday in ay joojiso tijaabinta iyo colaadda ay ka sameynayso gantaalada kadib markii sargaal sare oo qaramada midoobay ka socda
oo halkaasi booqday. sarkaal sare oo ka socda jamciyadda qurbaha ka dhexeysa iyo qaramada midoobay ayaa dowladda kuuriyada waqooyi u sheegay in si degdeg ah looga baahan yahay inay u ilaaliso qadadka loogana fogaado halista dagaal ee dhici karta sida lagu qoray warbixinta ka soo baxday qaramada midoobey. qoraalka ayaa lagu sheegay in uu imaanayo kadib markii Pinayom uu booqday sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey kaasi oo ahaa sarkaalkii ugu horeeyay ee halkaasi booqdo, waxaana la sheegayaa in xukuumadda Pinayom ay tahay mid go'doon ah muddo ku siman 6 sano. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay ogolaatay in ay joojiso xiriirkana la sameyso qaramada midoobey. xiisada ka dhalatay hubka halista ah ee kuuriyada waqooyi ayaa sare usii kacay kadib markii ay tijaabisay gantaalka caaga ka sameysnaa oo ahaa nooca qaaradaha isaga kala gudba. xukuumadda Pinayom ayaa waxay sheegtay in gantaalkaasi uu ahaa midkii ugu horumarsanaa kaasi oo gaari kara qaaradda Mareykanka. intaas ayaan daawadayaal kusoo koobaya warka caalamka oo xilligaa idinkaga imaanayay stuuriyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe inta aan dib u kulmi doono warkan warka xiga. nabadgelyo.